Ready? Don't do it right now, like you put your head in. Okay, only my head in your head. So the wala geesood ka beriyo meesha aan ku kala barano sanad kasta meesha aan ku yeelna ay tahay ma imisa qof baa imaanaysa muddada waxa weeye inaan xasuusino generation-ka naga hooseeya iyo kuwa kalaba iyo kuwa naga maqanba inuu magacaan awoowo u ahaa magac isku keena dadkii oo dhan aadka saxmad ah mar labaad waxaan leeyahay soo dhawaada والله مساي كنت أعمل شيء كنت أجي صوت ليش أكسوقش الله مرة أكسوق لا أروح أكسوق لا هو إذا يبغى عشان أحنا يسود أباي لو أنا شيء يسود خلينا يسود خلينا أكسوق لا عبد الله لو أكسوق أنا بريس لي ماذا أنا أقول لا كذي كان الحمد لله So, what branch? What branch? Salaman Gesod? Salaman Gesod. Salaman Gesod. You're the best. We have a first timer here. Please stand up. With our own height. أنا أقول لنا الساق على البيحي وحن قصت سوق الله ويدي اللهم حرست فاطمة عبد الله لا بيكسر لا بيكسر Boyeniz baka sokuşu. Okay. تاكسي سان أنطونيو كسوق بوري. ما شاء الله. هذا شو عن كسوق قال أحمد يشيد بيسول أبو هذا الشيء. يا تاكسي سان هاي. دوان وين حد وسود لو ردينا سود اللي مكرر كسول هاي. هي يشيد بيسول دوالي وعلى من حرس الجمال علاج بيه. ما شاء الله. كان الله نواه. حسن يسوي واحد كسوق قال علي لا يدي واحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم ما شاء الريوني تسوي مادان إيس أركان شاكيستان أنتي درس إيس أوغادان وهدوك تيس وعدان قرابة إلي إيس أوغادان مهمة دوغوين intaa weyn in la reunion waa in la isu yimaado oo la sheekaysto oo la iska warqaato weyn muhiimaddu waa intaas geesood taariikhdiisana waa uga sheekaynay waxyaabaha kale oo Soomaali qaar badan ay arkeen oo ay ka faa'iideysteenna waxaa ka mid ah in Soomaalidu qabiil aabbe ka aabbe ku tirsada kaliya isugu yimaadaan annaguna waxaan isugu nimid inaan hal qof warasadiisa nahay waa isugu nimid
هل قف ورسديس إن أنا هل قف ورسديس هتان هاي إسك كاي حاجة إسك كاي احتماله waxa aniga marka dad waxa ay xiga qofkii dadka ay xiga marka sida waxa la isugu yahay in la barto waa muhiim ugu caansan taariikh badan buu leeyahay laakiin taariikhdiisa ugu caansan waxa dhacday markuu jiray 10 sano ama 12 sano baa xeebta garacad asagoo jooga baa dad doon wata xaday waxa la geeyay Zanzibar markii la geeyay waa la gatay nin baa laga gatay ninkii laga gaday wuxuu ku yiri aniga adoon ahaan baa ii gadan ima adoonsan sababtoo xaafid quraanna waa ahay waxaana ka soo jeedaa bani haashim oo soo soo jeeda oo aftirsiin soo tursaday wuxuu galay bani haashim uu galiyay wuxuu yiri nasab ahaan ay ugu gubaysan kartay mid kalena ugu gubaysan kartay xaafid quraan baa ahay suldaankii Zanzibar baa maqlay in wiil noocaas joogo suldaankii baa yiri hal ii kar والله كان وحير مكو علينا ورركا قبيان كحلنا مسوح بالو فرا وحير وحلا يبر دد علماء هو صعد حضرموت يمن حضرموت بقى برشاد اللواري كريوان وطري حضرموت بتجي وحبو كسو برتي كبعد مركو وين هذا حجكي بتجي حجكي مركو سو حجي علوم المصاري وكبرتي علوم المصاري مصر الرع وأيضا نور سنة زوج وكسو برتي وهذا مو صومالي كسو نوعي Soomaaliya markuu soo laabtay xamar markuu yimid asaga iyo laba sheekh oo kale masaajidka arbaca rukun baa waxa uu laan jiray oo annagoo yareer inta inaan soo fiirin jirnay kutub oo fiqhi ah oo asaga iyo laba sheekh oo kale ay qoreen adugu waa markaas waa 160 sano ka hor meelaha kutub asaga iyo laba sheekh oo kale ay qoreen oo fiqhi masaajidka arbaca rukun oo xamar ku yaal sharafku saarnaan jiray وأنا سبحان مقلي إنه حافظ كوسوي ناقد يجي كوسوي ما تعرف ناقد يعرف كوسوي واحد كل شيء شريف حسن يهو يد بيتك بس هذا هو رئيس شريف حسن يقوى أشقار بجوا هل كان شرافة ضدك على العالم كوسوي دور يخلف كوسوي واحد كل شيء بيتك كاها بيتك كاها مركز تاريخ الساسة هاي كتب كاس ماشاس ولا نجري وارد جرني marka dadku inay taariikhdan xoogaa la ogaado way fiican tahay oo wax muhiim weeye ka bacdi caradii markuu noqday caruur badan buu dhalay oo waasadiisii gabar ka guursaday halkii gabadhii markuu ka guursaday waxay dhashay hiraabay iyo faadumo ayaga ugu weynaa hiraabo markay dhashay faadumo geesood waxay dhashay إيش محمود قصد قحمه لنين اللي يراده أي عروض نشة ما شاء الله مركي نشة هدي له إدمايو وحول السمية واحد هيرابي بيكون مرة هيرابي بيكون مرة مركب بعد هذا واقع عروض بضم والله ورسلي أنت يطيب من قان وهذا فرد كم فريق كم بطي من صوت هذا هذه سيد عن وصل عرورية ورسلي جسود كسر فرعنتي شم بقول هذا سكب بطنين كما يرى من صوت هذه أبو صوري مركب ما شاء الله وحاول ضد وضع الشيء وأنا هاي سيد أستمتع إن ضد سكوبرتو ولا كلا فاين يستو لوادي قبل درسة إن تيس أوجاتو هدوت أي إسدون تام وواح أدمه أوي وكبعدها حرير أي سمايستان صح حرير كسمايستان إن ليسكور خب فاميليا ده مركب فاميليا ده مركب إن شاء الله ما دام the younger people who don't speak Somali the short story like a part of the Gesut story like he's my great grandfather he's his grandfather so he's actually he's a parent for all of us Adel Ahmed so Adel Ahmed Gesut is his mother's dad so that's his grandfather he's my great grandfather but to some of the kids here he's their great grandfather. They are the 8th generation from Gesut. So Gesut, when he was young, when he was 10 or 11 years old, he was stolen from the coastline of Somalia. And he was taken to Zanzibar. Do you know Zanzibar? You've been in Nairobi. I saw you in Nairobi last year. You know where Zanzibar is? How about Tanzania? You know the country of Tanzania, right? It has an island called Zanzibar. So he was taken to that island of Zanzibar. And he was sold as a slave. But then
he told the person who bought him as a slave that he said, you cannot hold me as a slave. Why? Because I memorized the Quran. And I'm also a descendant of Bani Hashim. Who's Bani Hashim? You know who Bani Hashim is? Prophet Muhammad descended from Bani Hashim. So he counted his name from father to father to father to father until he reached Bani Hashim. So the guy who was the Sultan of Zanzibar at the time told him, do you want us to take you back to your family, or you want us, you are a very smart kid, you want us to take you for education? And he said, I want education. So they took him to Hadramaut in Yemen, and he was educated in Yemen. And then when he grew up, when he was a grown man, he decided to go back to Somalia. But to go back to Somalia, he went to Hajj first. He went to Mecca and Medina. And when he finished, he met some scholars from Egypt. Then he went out with these scholars from Egypt. He went to Egypt and he studied there for years. Finally, he came back to Mogadishu. So in Mogadishu, when we were kids, I remember we used to go to one of the oldest mosques in Mogadishu called Arba'arub. Arba'arub means the mosque, the four pillars. So we used to go to that place. There was a book that Gesut and two other sheikhs wrote by hand about 160 years ago. And it used to be in the shelf of the masjid. And we used to look at it and we used to sign, look at his name. His name was written. So what's Gesut's real name, the kid? What's Gesut's real name? Okay, come on. Yeah, right? Gesut is a nickname, right? So, Gesut is his nickname. His real name is Muhammad. So the book actually said his name. It said Mahmoud Haji Isa Hussein Haji Ali. Right? So that was the short story of Gesut. Then he went back to his family. His family, for years, they didn't know if he was alive or dead. Actually, his father and the others, they thought he was dead long ago. But his mother never gave up. She made a poem. Do you remember the poem? No. wuxuu maqlay in geesood masir joogo wuxuu yidhi geesoodna waa raadinaya cadkiina waa aadaya labaduna isku hooyay ahaayeen bal waa tegey markaa cabdillana waa tegey waxay tiraa wartii yaa la ii barbaar sheeganina bogonow ii kaala gabdhihii baroortii bogonow ii kaala cabdillana biyuu dhaansadaya bogonow ii kaala intaasaan ka hayaa waxaan mahad iska leh ilaahay intaan oo iyo qaaba ah ilaahay isugu keena halkaan nabadgeliyo mahad ilaahay asaas ka ku noqdo waxa isu keenay ehelnimadii labay u baxdaa si carruurta aad ugu sheegtaa waa qaraabo iyo rixin rixinku waxaa xagga habarta ka soo jeeday sida aniga قرابنا بحاول أذكر وحيد على حق سوتش ورق لا هوانك يقولون بس كذا نحن يا رامنا سكان كنتي اللي ما سكان كنتي دين الإسلام ما سكان كنتي ضد ولا رابع يقولون هاي ليش تنا وحنا سوق ما هنا برش أقول كلمة قبلها ميليشيا أوليان يهنما يأذن يوحنا سنها إلى قبرتها الوباعية متكفي على المنشر تعهم وضبط عبد الصاص وديالي لهان وحاب الرجية بعدنا دجالنا اللي وحنا تكون بروح إن يسولي لها يبان الرجية ملك صار حديث على جد وهي تذكر أن كسو بيري لها وهدي تريه وحنا كنت في سنة تاريخا وتاريخ تبدأ بكشة كيدون سعره تروفر وحين يسوون من وحلي هاي لها وين عروس وقت الدم بكشة كي أنا قلت تاس لعبة وحن يسوون من تجني نفلحيو أنا يسوون من أهل عروس وين كشة كي تاريخ وين سيسعطا هذا البدني متشوا
taariikhdii geesood sida dhinaca meel uga jirtay dadka badankoodna aysan kaaga dhaweyn nooga sheekaytaa dadka anigu waxaan ahay geesood awowgay buu ahaa hooyaday ku dhalay idinkana waxaa laga yaabaa geesoodba inaynan xaata xaalkiisaba dad badan uusan ogeyn anigan idinla jooga awowgay buu ahaa dadkan waxaan u ahay waalid shan jirbaar ah shan jirbaar 8 baan socdaa waa dad iga socday anna meeshaas joogaa marka qof kasta inuu ogaado taariikhaha waxa la soo maray iyo sida arrintu yihiin الحمد لله مركز هاوشي وحان ربي إن حوار والدك إن كل رجليو عرورتا إن شاء الله إن تكون داشان وأوجع إن مرة تكون داشان وادي رجلين وادي سوء حسوسنا يا دلالك وجوه إنه عرورتا الله سمينا يو أفسومالك إن برتان أنت هتبارك برتان دفن كان برتان قرابنا برتان dad bay ka dhigaysaa mushkiladda ugu weyn oo caruurta halkan ku weynaatay oo wareer ku dhacay wareerka ugu weyn waxa ku riday waxa way waxay yihiin ma yaqaanaan inuu Soomaaliya shaki baa uga jira Mareykan ma noqon karo la aqbali maayo waxa la madow muslimiin ah tahay Soomaali ma aha waa wareersan yihiin marka waxaan ay identity crisis ay yiraahdaan baa haysta caruurta si identity crisis ka looga saaro caruurta qaraabadooda waa inaa bartaan qaraabadooda wax sida ugu fiican ugu baraysaan waxa weeye inaad u geysaan guriyaha dadka intiinaan qaraabatiin inaad telefoonada kala qaadataan oo soo booqataan oo caruurta qaraabadooda ku xirtaan ilmihii meeshu ka soo jeedo garanay qof aan sumad lahayn oo meel ka soo jeedo aan aqoon uu wareeraya dadkii halkaan nooga soo horeeyay oo dadka madowga oo waagi hore Afrika laga soo qabtay mushkiladda ugu weyn oo haysata markaad wareysatay waxay ku leeyihiin meelaan ka nimid iyo luqad ay dadka ay ku hadli jireen ma naqan bay ku leeyihiin marka annagana sidaas oo kale inaan noqono ilaahay naga dhigo marka ilaahay naga badbaadiyo laakiin haddiina dadaalin hadda waa dhacaysaa wixii in la dadaalo oo waxa la rabaa caruurta waxay yihiin la baro waxyaabo badan oo haddii la waxa jira aan idin sheegi karo caruur tarbiyadooda qayb ka qaadanaya laakiin maadaama family ruuyinayaan isugu nimaadnay caruurta qaraabada bara oo xoog saara una sheekeeya caruurta u sheekeeya qaraabada iyo waxay ahaan jireen iyo taariikhda uga sheekooyinka dhaqanka oo Soomaalida uga sheekeeya hadaa Ingiriis taqaanid hadaa Ingiriis ugu sheeg af Soomaaliga haday si fiican u fahmeen laakiin caruurta af Soomaaliga bara oo guriyaha markaa joogtaan af Soomaali kula